toddobadaasoo xagga jaqsiinta ahna guurkooda waa xaraam. nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam yuxarimu min aridaac maa yuxarimu min annasab. xagga nuugmada waxa xaaraantinimeynaya wixii xagga nasabkaba ku xaraama ayuunba xagga nuugmadana ku xaraama. aayadduna 3 ka mid a haddaad sii akrido ayay sheegaysaa, 7 ma wada sheegayse. aayaddan suuratu nisaa halkaa jusku ka bilaabmayo agteeda 3 ka mida bay sheegaysaa dumarka ah. waaye dabcan marka la idhaahdo 7 bay la mid yihiin, dee qofba qofunbaad barbar dhigaysa. inantaadii waxaa noqonaysa tii xaaskaaga jaqday, ya waa inantaadii. hooyadaa waxaa noqonaysa maxay? tii naaska ku jaqsiisay. walaashaa waxaa noqonaysa tii naaska wada jaqdeen. cidadaa waxaa noqonaysa tii aabbaha ay naaska wada jaqeen. habaryartaa waxaa noqonaysa tii hooyo naaska ay wada jaqeen. saasunbaad wadaysa. gabadhaa walaalaha tihiin naaska wada jaqdeen, hablahay sii dhashayna dee abtibaad u tahay. inanka a naaska wada jaqdeen habluhu sii dhalayna dee adeerbaad u tahay. sidaa daraaddeed ayaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo bandhigay jacfar ibn abi aalib. xamsan u malaynaya inuu ahaa, adigu adeerkii inanuu dhalay ayaa loo soo bandhigay inuu guursado. markaasuu lahaa naas baabaan wada jaqnayba, marka wax kale la eeginba dee naas baan wada jaqnay. waaya